الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدكو وحاوية المهم وحيدونيان ثورة جنسية وحلا يراهدو أما جنسية أوقات وكل المركي داير يهين درتو ده وحيالها دكتيد قراية أو المها كعية كميهنا وضاق عنتكو هاي لابو ilmuhu waxa aad iyo aad ay u doonayaan intay dhalin yar yihiin inay lacag helaan bay rabaan ay wax ku samaystaan marka labadaas lacag raadinteeda iyo jinsiga raadintiisa labadaas ilmaha mushkiladeedu tahay ayaa asaasan way maqlaysan Soomaa yaani dhalin yarada mushkiladooda asaasiga ahi waa laba aljinsu wal maal jinsiga inay xaqiijiyaan iyo waxa ay doonayaan inay helaan marka halkaasan waxaanu ka bilaabaynaa mukhadaraadka iyo jinsiga waayo lacagtaasi mukhadaraadku wuxuu rabaa lacag lagu gato rabaa hadi jeeraale mukhadaraadku waxay rabaan lacag lagu gato jinsiguna wuxuu rabaa lacag uu u baahan yahay marka jinsigan sheega waxa weeye waxyaalahan oo qofka uu doonayo inuu guto shahwadiisa inuu guto inuu u helo mataqaana wadiifa xageebu ka helaya mukhadaraadkan qofkaani inaan ka hadalna weeye khamrada iyo sigaarka iyo xashiishka iyo afyoonka iyo waxyaalahan la xiriira oo dhan oo cocaine-ka iyo crackiska almahanu waxay doonayaan in ay gaaraan bay doonayaan dad baana baraya yaa bara ilmaha khamriga yaa bara ilmaha xashiishka yaa bara ilmuhu jinsiga sidee ku bartaan ama sagaska sidee ku bartaan waxyaalahaas waa muhiim weeye dhalinyaradu way wada maqlayaan dhammaantood marka waxyaalaha ay doonayaan oo asaaska ah waxaa ka mid ah marka ugu horeysa meesha uu ka soo galo jinsigu ama mukhadaraadku ay ka soo galayaan waxa weeye mushkilatul madrasa madrasadu waa saldhigga ilmaha qalloocooda iyo leexashadooda sidee bay ku tahay annagu haddaynu nahay Soomaali waxaan aqoon jirnay ilmo guriga ka taga iskoolka aada iskoolka macallimad iyo macallima joogay muslim ah oo ilmaha waxa qalloocan ka celinaya ayay u tagi jireen halkan waxaad ogaanaysaa macallinku ilmaha asagaas jinsiga uga sheekaynaya marka uu ka sheekaynayana gabadhii jinsigeedii wuu ka sheekaynay inantii jinsigeeda uu ka sheekayn wiilkana jinsigiisa uu ka sheekayn jinsigu macnaheedu waxa weeye sida sagaska u gudan lahaa qofkan soo u galmoon lahaa wiilkaanu gabadhaanu say wiil ugu galmoon lahayd waxaasoo uga sheekaynaya macallimadda ka sheekaynaysa macallinkuna waa ka sheekaynaya marka xayaagii ka hor joogi lahaa ama inhibitoriskii ka hor joogi lahaa arintaasi macallinkaani ma qabo macallimaduna ma qabto macallinka biologiga u sharxaya macallimadda biologiga u sharxaysa waxyaalahay maanta ay siday u gudan lahaayeen bay uga hadlayaan say u kulul yihiin bay uga hadlayaan inta sida loo baahan yahay bay uga hadlayaan waxay ku daaragti garaynayaan gabadhu haddii ay soo gaarto 10 sano oo aanay helinin wiil helinin waa ay bugtaa oo kale waa bugtaa wiilku hadduu 10 sano soo dhaafo oo aanu gabar helininna waa bukaa maskaxda iyo caqliga ka liitaa ilmuhu marka taas maskaxda uga dhagay maskaxsi ay u xaqiijiyaan waxa weeye gabadhuna waa inay wiil involved ku noqotaa oo ku dabaliqantaa wiilkuna waa inuu gabar ku dabaliqma weeye gabadhu hadday bawdiyaha qarido naasahana qarido waxba ka siiyaha leeyahay way xibnihii waxay qarinaysaa wiilasha soo jiidanayay xibnihii wiilasha soo jiidanayay yay gabadhu qarinaysaa baa leeyahay xibnaha bawdada iyo naaska hadday qarido calooshana minka lagu sii daray waxa weeye marka gabadhaas waa bugtaa weeye make upti waa la soo dhaafay timaha bushimihii make uptoodii waa la soo dhaafay cidiyaha make uptoodii waa la soo dhaafay liishii la ismarinayay iyo maanta bootarkii waa la soo dhaafay haddii aanay maanta intaa haddaynay tusinin gabadhaas waxbaa ka siiya marka macallinkii iyo macallimaddii ayaa gabdhihii ku dhiiri gelinayay inay sidaas sameeyaan macallinkii wuxuu ku dhiiri gelin wiilkii naftiisii haddaanu gabdhahaasi la xiriirin inay wax ka yihiin oo qariban yahay marka macallinku
asaaska ilma baridda jinsiga la barayo saasa u daliila sida loo leeyahay islaamic school hal raadiyana taasa u saldhiga ilmihiyoon da' gaarin ilmihiyoon majuur noqonin oon bislaanin oo xataa wiil hadduu gabar yahay aan bislaanin yay barayaan markaasay weliba u sheegayaan macallinkii iyo macallimaddu waxay u sheegayaan meesha ay arrintaasi kala xiriirayaan bay u sheegayaan in alla inta website-oo dhan bay barayaan ayagaa baraya website-yada sagaska ayagaa baraya jinsiga ayagaa baraya meeshuu ku arkana bornographiga meeshuu ku arkaya ayagaa baraya gabadha hadduu rabo inuu hataa arko maanta ma arkaysaa cawradeedii adkeed hadduu arko inuu arko meeluu ka arkaya ayay u tilmaamayaan ayagaa ku daaragti garaynaya guriga kombyuutar kuma lihid miya kaale haddaan ku tusaya iskuulkii waa la barayaa siduu ku gela si aanan waaridkiisa u tusinin gabadhii iyo wiilkii mid walba gaarkiisaa loo soo barayaa wixii annaga ceebta nala ahaa mar hore laga soo dhergiyey ilmahan waa inaad ogaataan arrinta iyada waxaa la barayaa sida marka toos la iskula hadlo MSN-taa la barayaa marka MSN-ta waan u soo noqon doonaa marka macallinku waxa weeye macallimaddu ilmaha qolada baraan sagaska ama jinsiga ugu horreeya waxa bara weeyaan ilmaha annaga ilmihii waa naga soo tageen kalaas bay noo soo qaateen laakiin kalaasyada ay soo aadeen iyo duruusta ay qaadanayaan ma aha mathematics iyo chemistry iyo physics ma ahee waxay soo qaadanayaan social classes bay soo qaadanayaan sagaskii bay soo qaadanayaan experience-yaa loo samaynayaa tan u samaynaysaa ama kan u samaynaya hadduu doono waxay leeyihiin practical anaa kuu tusayo hadday macallimaddu ay tahay lesbianku waa naagta naagaha ku xogata weeyi anaa ku tusayay leedaha gabadha sidaa aad maanta ma arkaysaa aad u baranaysa arrintaa wiilkii naftiisii macallinku hadduu yahay gey hadduu yahay ama macallin qarriban ou yahay asagaa le anaa hadda ku baraya dhallinyaradu waa wada qoslayaan waan runtoodu waayo waxaa lagu baraya meesha ayaa sidaa markaas waxaad arkaysaa qadiyadda ayagaa qaar baa ilmihii baraya oo ayagu xataa laga yaaba guryaha inay u qaataan oo laga yaabo inay kambiga u wadaan meelaha practicalka oo lagu hirgeliyay waxaa ka mid a banooniyaa lagu soo ciyaarsiinaya kaalay banoonigiiba la soo ciyaarsiinaya qorraxdu markay dhacdo wiilkii waa la sii wadaya shaah buu ka bixinaya sandwich buu u gadaya waa ku fulinaya wiilkii ma sheegi karo magaalada Toronto ee Canada yaa arrin la yaab laha dhacday afar macallin oo labana haweenta laban rag tahay oo shaqadooduba aan wax kala ahayn iskuul macallinka ahaa wiil nin aw dhalay mataqaana wadaada oo dhakhtar ah oo iskuulka buundooyinka ugu haystay yaa wuxuu arkay wiilkii iskuulkiiba doonay inuu aado wiilkii buundooyinkiisii liitaan saanoo kala saan wuu yaabay marka iskuulkii uu tagaa waxba looma sheegayo maalinkii dambe iyo wiilkii sidoo u waday oo u laaluushayay buu runta u sheego wuxuu yidhi iskuulkii waxaan ku nacay nin macallimaha ii jooga oo maanta ma arkaysaa doonay masushahay wiilashan ugu fuulo hadii jaraan laba usbuuc ka bacdina jaraa'idkaa lagu qoray inta wiiluu faraxumeeyey iyo inta wiiluu fuulay iyo inta wiiluu qarribay macallin buu ahaa wuxuu waa ku ridayaa mid walba haddaadan yeeli waxa aan doonayo ma baasaydid iska jir buundooyinkaaga waan ku ciyaarayaa iskuulka jaamacad ma aadaysid iska jir macallimadda lesbianka sidoo kale ku leedahay gabadha waxay leedahay haddaanan anigu ku barin arrimahan doon inaan ku baro waxa weeyaan ma baasaydid iska jir waa nooc oo ka mid ah hostage ilmihii lagu haysta way mararka qaarkood ilmihiiyo midnight-ka soconaya oo goor damba soconaya oo aan dhegaysanayno ma goy karo iskuulkii iyo ma goy karo banoonigii iyo ma goy karo meeshii la igu yeeray iyo macallinkaa amarkaa igu bixi ma diidi karaan arrintaas marka macallinka inuu yahay iskuulku inuu yahay meelaha asaasiga oo ilmaha lagu baro jinsiga lagu baro kharbudaadda lagu baro website-yada balaayada lagu baro inuu ka mid yahay ogaada waxaa kaleetoo ka mid ah meelaha lagu barto ilmaha la fadhiya wasaaxibu biljambi ilmaha la fadhiya iskuulka ilmaha naftigooda dhallinyarado dhan kulli haddaad weydi waa kuu sheegayaan qofka ugu horreeya oo u yimaada oo kala sheekaysta sagaska kala jinsiga kala sheekaysta ama mukhadaraadka kala sheekaysta waa ilmaha garabka ku haya weeye ama wiil haada ama gabar ha ahaadee oo le kaalay soo arag waa ku tusaynaahe oo meesha ma taqaanid miyaa sidaas ma taqaanid miyaa masturbationka ma taqaanid weligaa ma lagu taataabtay adiga maya weligaa gabar ma taataabata maya weligaa ma la arkay wax waalan baa tahay waad bogtaa psychologist orad u tag dhallinyarada dhan waa wada qoslaayeen kulligood waa waxa lagu wada leeyahay waxay u wada qoslayaan way wada og yihiinoo sidaa lagu wada soo sidaa ma
sidaas iskuulka soo luma yiraahdo perfect waa wada ogsoonaa dhamaantaya marka dhammaantood mid walba waa lagu tirtirsiin waxa leeyahay hooga midkan dhigo waa mid psychological u qariban yahay gabar ma lihiya girlfriend ma lihiya ama haata adigu hadaadan girlfriend lahayn boyfriend ma lihiya adigu hadaad adigu rabeen inaad wax fuusho waa lagu fuula maxaa jira saas la leeyahay hadaad adigu rabeen inaad wax fuusho waa lagu fuula hadii kale tus ina ama lagu fuulo way adiga ama ina wax fuushid way ha saas weey hadaadan wiilasha rabeen gabadha waxa leeyahay kalaha gabdhaha ku taafid gabdhaha ku fiicanta adiga gabar kala oo imaanayso timahay gacanta ugu qabanaysaa gacantay u feeraysaa hol garka maanta tintii u feeraysaa waa taabanaysaa daankeedii iyo maanta markaysaa xagga kale kala soo wareegay saasay ku wadeen marka dambe say u wado marka dambeeto waxay bilaabeen inay jirkeeda tuujiday bilaabe say u wado khalaas finished ha gabdhii waa qoslayeen soo markaysid waaw waa sax weey ha run waaye taas waxaasoo dhan waa wax la ogyahay weey marka saaxiibka iskoolka kula jooga aan ismaqalna marka waa sognahay aan ismaqalna saaxiibka iskoolka la jooga gabadhii waxaasay bare gabadhii waa muslimad waay waa muslim guri muslim ka timid aniga aabbahay hooyaday ma ogol arrintan aniga aabbahay hooyaday ma ogol markay maalmo tiraahdo waa lawada oo aabbahay hooyada maxaa ka galay businesskaaga alleeyahay waa businesskayga de maxaa ka galay adiga aabbahay hooyada maxaa ka galay saasaa la leeyahay waanu imaan doonaa yani tiknikada asaasiga waanu imaan doonaa waxaa la samaynayaa oo kaleeto meesha kale asaaska waxa weeye suuqa marketka ilmaha waa loo imaanaya waxaa leeyahay riyaal lacag ma rabtaa gabadhi waxaa leeyahay lacag ma rabtaa haa hoo lacagtan hoo hadda maanta 100 la siinaa waa saaxiibkay gal walba halkan suuqaana keen waxaa la siinaa mataqaanaa bidkada 2 bilood 200 la siinaa kuna la siinaa marka dambe waxa leeyahay lacagtan soo ma jeedi haa anigu adoo kale waa shaqaystay soo gad bahashan soo gad adiga soo gad adigana marka soo gado percentage commission kaasan ku siiha laakiin ma gooy kartid mana diidi kartid hadaa maqnaanta iska jir wixii kugu dhacwa arki doontaa waa la wadaa ilmaha galabtii la wada kaxaynayo horwoosh iska dabalood arkaysid oo sarwaalka weyn wata oo suuqa la geynayo oo moodo inay sigaarka dhuuqayaan waanu soo socdaa insha Allah arintaasi waxa weeye suuqa waxa u fadhiya nimanka siinaya waayo waa nimanka tijaarada ka sameeya daraagiska agencyalka ay soo dirteen waa qofkii boqolaada laga yaabo ee magaalada jooga qofka wiilkaaga ama gabadhaada tababaraya nimankii waa weynaa iyo kuwii ku xigay iyo kuwa distributorska iyo midna ma arkaysid kuwii xogaaga yarka loo soo dhiibay yaa leeyahay ilmaha barqaar ilmaha la baraya waxa ugu badan oo takhtiidka aan iktishaafnay iminka Canada iyo meelaha kaleba guryaha dadka income-koodu lacagtoodu ay yar tahay refugee ah oo kaleeto yaa loo soo diraa waxa leeyahay soo bar ilmaha daraagiskan soo bar ma rabno ayagoo welfare qaata inay haddana jaamacadaha iskuulada ay high school noqdaan ma doonayne waa inay drop out wada noqdaan oo criminals wada noqdaan oo la xirxiro oo maanta la cabiidiyo oo laga shaqeeye soo bar san ku soo baraa marka hore adiga soo dhuqsi marka hore soo qiiq marka hore soo dhadhansi marka hore yani waxyaalaha ku bilaabaan waan idin sheegi doonaa insha Allah taala waa suuqa waa nimankaas boqolkii agentkii boqolad markii la soo tiray jaranjarta ayaa suuqa ugu yimaado ilmaha wadaya hadii jeeraale waxay ku wada xariin internetka marketing lagu sameeynaya MSN ta marketing lagu sameeynaya internetka MSN ka daadan aqoonana ku sharxi doono iska sug Soomaa ilmaha yarka waa yaqaan perfect u yaqaanin laakiin anagu ma naqaan dadka waaweynka okay waxa dhici karta arintaas nafteeda booliisku inay ka yihiin qayb laakiin ma ogid adigu inuu booliisku qayb ka yahay booliisku markay xashiishka qabtaan oo heroinka qabtaan oo maragwaanada ay qabtaan oo gaanjada ay qabtaan distributorkoodii iyo marketkooda runtaahi waa dadka annagoo kaleeta weeye ee aan ajnabigana ah lacagtooduna yar tahay hadday dacwoodaan cidna aan wax laga qaadi karin way dadka lagu fulinayo marketkooda saasa balaaga loogu dhiib jiray hadda balaaga daa'im meesha balaag ku arato waa daraaga soo arkaysa Sooma saas way ujeedadu marka balaagiska annaga kamid ah hadeertaan annagana lagu fulinayo marka horeeto ciidan badan iyo population badan aan nahay booliisku marka waa soo hirgelinay wixii ay qabteen xashiishka iyo cocaine iyo heroinka ay qabteen oo dhan kulligood ee dadka loogu sheekay waa la dhistaro gareeyay lama dhistaro garaynin waa dibaa lagaaga iibinaya adiga ayaga ku bartay garaynay annaga ku daafacaynay kuleeyeen laguma soo qaban karo waxaan arkaa anigu xaafad wiilal Soomaaliya gaday booliiska loogu yeeraya booliisku oo imaanayaan waa la si salaamaya cabaar la taagnaanayaan waa idin baarayna la leeyahay ayagaaba ilaalinayaba
ورمحا دعي ميدان ورئيس تمركه مروحوا يروى والين كون نوغو يراي كلها nimanka alaabta noogu soo dhiibay ee noogu yeerayaan kulaha nimanka anagu shaqeynaa kula iyaga noogu yeerayaan booliska laftooda u shaqeynaa kula anaga booliska ma u shaqeysan oo meeqa idin siiyaan ee ku sheegmay lacag badan nala siiyaan anaga lacagtan tii moortanka ka shaqeynayna iyo meelaha kafeega lagu gado iyo lacagtan ka shaqeynay lacagta halkan ka qaadan tan badan maxaa ogta adiga haye baabuurtan wada ord aad u jeedado hoondada hoon la wada xiimayno dhanba waxaan ka samaysanay meesha hadaan booliskuna bartay marana la xirxir la gulay adiga maxaa moodaysa adiga iskool aadayna lagu leeyahay meel dhaxa guri uga samaysan yahay oo lagu shiraba taamki iskoolka la aaday waa laga soo tagay taamki iskoolka laga soo rawaxana waa lagu leeyahay baski iskoolka lagaaga yimid mana ogid adiga meel la aaday maanta waxbay gadayeen suuqay ku kala maqan yihiin dhamaantood oo idin boolisku marka waa qayb kamid ah waay sida ku bartaan rabaa marka waa inaan wax ka sheego kow waxay ku baranayaan marka hore waxa la leeyahay halka ma ku sii cilka ma ku siya xanja ma ku siya adiga xanja la siina xanjada maxaa ku dhex jira kookayna ku dhex jira xanjada ruuga wallahi waa maniyo waxa noqdo active baba noqdo hay baa noqde hay soo ma noqonin hay baa noqdo ku leeyahay waa si wada xanja fiicaneed wallahi xanja fiicaneed aniga dhanba waa isbedele wax weyn kuma jiraan laakiin wuxuu ka dhigaa hay wuxuu jeclaadaa ku jira xanjadaas marka la hadana chocolate siiha chocolateada maxaa ku jira hadanana baashaas ku jirta wallahi chocolateada waa fiicneed energy badan baan ka helay moogta adiga ma daalaya ka waran ma daalayso dooma okay hadana xanjadii waa la soo dhaafaa chocolateadii waa la soo dhaafaa waa soo socotay moogta waniyo u baxan maarta waliga ma urida u baxan bal urbal niyo ama gabara u keenaydo loogu soo dhiibay ama wiil kale taa u keenaya way isugu dhiibaan labadooda ilmaha gabdhaha amood inay nabad kaliya qabaan naftooda waa urunee ama asaga urunee wuxuu leeyahay wallahi waa fiicna asaga bas mardama inaan uriyaan rabaa leeyahay adarta inaan urido kaale hawaaye yaani waxa iiga sheekeynayeen maalin dhaweyto gabdha saas oo kale lagu dabay yaani gabar baa waxa loo keenay bahalkaas la urinayo yaa u keenaya ma taqaan walaalkeed baa u keenay markaasuu yiri walaasha hadaad ii keento daraagiska waan ku badinayaa buu yiri soo yahay say walaasha u keenaa yiri aniga way diidaysaa soo waxa yeesha ubaxan qaado urudhe ubaxii uriday maanta waa fiicnay perfect haddana maalintii kale u keen mid kale ubax kale taa mid ubaxna ku keen fiiri waa uriday haddana waa ka fiicnay maalintii saddexaad tir kaale ubaxii fiicnaa xagee ka keentay waa u baahnaa ma u baahantaa nin hayaan ogeena keen ninkii naftiisa u keenay bahasha gadaay mid ayadkii waa sahlanayde mid uu aqligoodana ka tagaayo u keenay oo ursiiyay bas waana fuulay sidoo rabay waa waday maalin walba marka waxa rabtaa inay baalkii urido inuuna fuulan ninkii khalaas suuqay gashay taasi marka waa shuminta weeye sigaarka ayaa loogu dhex daraya warqada yar oo la duubay Soomaaliya warqad yar ilmaha duuban dhalinyarada soo ma taqaan warqad yar la duuba maarteen ya iskuulka agtiisa warqad la duubay Soomaaliya arkinay dhuuqayaan daa'iman arkino ya caleenta aad moodeen isku duuban yihiin daraagiskii waay waa la duubaa heroinka la duubaa waa la dhuuqaa sidii eeyihi oo kale ta sniffing lagu sameeyna waa la dhuuqaa ayaama hore sigaarka la baraa tuhdaas ku ayna candhuufta maanta oo dhan ma taqaanid muxuu candhuufta tufaya waa maxay dhunta si engegayda afka si engegaya tuhdaas ku ayna anug maanta oo dhan waa dhuuqa sigaar markii hore la baray waa la israacay midaa la kala qaadana kaasa la dhuuqaa ilaa ka badan ma raba inuu baray intay ka baranayaan ayagoo 6 ama 7 oo hal duubid kaliya u daaraa duubiddaas marba midba dhuuqaya mar waa ku filantaa si suuqa loo soo galiyay ay berito involved u noqdaan u gadaan u raadiyaan baa la doonaya marka kadib ay leeyahay xashiishkii loogu dhex daray sigaarkii oo bartay ay leeyahay marka baashan lacag ma rabtaa inaan ku siino badan adiguna aad maalin walba hesho soo iibi intaas adiguna intaas aad ku leedahay waadna dhuuqay hadaad rabtid xagee ka soo iibinaysaa iskuulka ka soo gad dhalinyarada ka soo iibi adiga lacag yar ka soo siinaysaa $10 ka soo siinaysaa waa inta yarta mar la dhuuqayo $10 ka soo siinaysaa $20 ka soo siinaysaa waa heli karan waa la yaqaan income-ka ilmaha iskuulka dhigtay waa la yaqaana wuxuu ka shaqeynaa Tim Horton oo ka shaqeynaa ama McDonald's oo ka shaqeynaa waxaas oo kale lacagta soo qaataan waa la og yahay lacagtooda lacag bahal u munaasibaha la soo siina soo bara la leeyahay iskuulka agagaarkiisa baag yardigiisa lagu gadayaa macallinku waa og yahay macallimadu waa og tahay directorku waa og yahay dad badan la socda waxay ku leeyihiin balukaaca aan wali sii ogaanay leeyihiin ilaa laga barayo ilmaha oo dhan waa loo kaadinaya
suuqa marka iskuulka waa la dhaafsiinaa moolalkaa la geyhaa marka meelaha tareennadu tagaan iyo moolalka iyo meeshaasaa la geynayaa caawdha halkaasaa lagu haayaa waa la barayaa markii sidaa lagu soo sameeyo shaqaale ay noqdaan oo tujaartii ay noqdaan oo booliiskii iyo wixii dhammaayo kulligood la iskala qayb galo arrintii waa xumaanaysaa kolkaa lacagtaas lagu siinaayo iyo baasha aad gadaysid haddaad ka tagto wixii kugu dhac waa arki doontaa la leeyahy guriga marka waxaad arkaysaa canugii oo le guriga kama bixi karaa cidaha qaarkood kuu sheegan waxay ku leeyihin 2 usbuuc guriga ku jira waa bixi la'yahay maxaa yeelay yaa u taagan dabadda nimankii bahasha baray oo uu dhiilkoodii ka baxay ayaa u taagan haddii kale kow bay uga siinayaan waana dilayaan ma u daynayaan waa groups wey isagaana sheegahay leeyihiin haddaa ka baxdo waa ku dilaynaan kawan kaaga siinayna lacagtaasna waa lagu siina waana fiican tahay annagaana ku daafacayna gruubka annagaa tahay laakiin maalinkaad ka baxda iska jir wixii kugu dhaca hostage buu ku jiraa dhab hostage buu ku jiraa qaarkood jinsigay barayaan ama waa niman kaleeto ka xoog badan asaga lacag baa la siinayaa nintondhow baa loo iibinayaa waxaa loo iibinayaa mataqaanaa bahalahan oo belayariska oo dhan baa loo iibinayaa wax alla waxay ciyaalku cayaar jecel yihiin oo dhan bahalahooda oo dhan baa loo gadayaa dhar baa loo iibinayaa war xaggee ka keentay bahalahan aad wadato xaggee ka keentay aniga saaxiibkay ii gaday saaxiib uma gadinin waxaa laga yaabaa mid kaloo geeyahoo lacag lahu inuu u gaday uu soo fuulay canugga mana aad ogid adiga ma ogid adiga gabadha sidoo kaleeto waa la isdaba taagan yahay xaggee caalada seexatay gurigii saaxiibkeen seexday u leeyahay saaxiib ma ahan guriga ninka seexda waa inuu u xayiran yahay wey hooyo badan hoosta waa ka oynaysaa wallaahi yacni marka wuxuu leeyahay guriga saaxiibkan soo seexanay koo iskuulka isla dhigana gurigiisaan soo seexanay aniga si aan u ciyaarayni midnaydkaan gaarnin gurigiisaan soo seexday aniga gurigiisi ma soo seexanin nin baa soo haystay ama maanta ma arkaysaa sidaasoo kaletay ku jirtay ama gabar baan soo seexday gurigeeda leedahay ma jirinin hobi bal inuu guriga seexday in kalayto hobi bal inay guriga joogtay in kalayto no way mararka qaarkood waxay leeyihin ciyaal baan aadan guri baan soo cidda soo salaamaynaa kule saaxiibtan soo salaamahay leedahay gurigay sheegtay markay tagto waa ka tegaysaa guri kaletay aadaysaa ama wiilkii aadayaa intaba waa waxyaalaha fara badan oo aad u yaallo wey maxaa aniga ii kontrolaysaa maxaa aniga ii daba socotaa haddaaba saa tira waa bakaategaaba aniga waa bakaategaaba haddaa aniga saa tiraada haddaa aniga cadaadiso waa bakaategaaba aniga waa sidaas wey waxyaalaha ka midka kow waxyaalaha kaleeto oo sigaarkii iyo markii daraagiskii la baro oo khamrigii marka waxaa lagu barayaa kooka iyo waxaa la isugu daraa wayna la isugu soo daraa adiga muslimaatee ma cabtid khamrada la leeyahay ama wiilka ama gabadhii markii baadhiska loogu yeero marka kookaa la soo qaadanayaa xoogaa yar baa loogu dhex darayaa oo aan midabkeeda iyo dhadhankeeda in badan laga fahmaynin waa kooka cusub baa la leeyahay kooka cusub weeye kooka cusub waxaa ku jirta hal jurco oo khamriyaha ku jirta ama reed wayna ku jirta kookada u eg ayaa ku dhex jirta waa la cabsiinayaa finish hamiinka dambe tadaadseed waa dhammaatay taas waxay gaarsiinaysaa marka wiilkiiyo adiga kula jooga gabadhiiyo adiga kula joogta inay caalam kaleeto aadan ka warqabin inay ku jiraan oo fara badan runtay ma taha mase maaha runtay ma taha dhalinyaro mise runtay maaha bravo calaykum waxa weeye markaas gabadhii waxay bilaabi inay guriga xijaab ku qaadato ama sarwaal ay wadatay laakiin ay ka baxdo dhar kaleeto sarwaal iskuulkii ku tagto madaxa bannaysato tintii daayad marsato bal la yidhaha mararka qaarkood caloosha maxaa u bannaysa weyda adiga ma gada kartid qaali waaye bahalahaas mutantaha loo jeeda may aad u gadan kartaa qaali waaye caloosha la bannaysa ma aad u bannaysan kartaa adiga muslimaad ka dhalatee diintiina lagooyo waaye waxaasoo dhan kolli markaasi waxay ku jirtaa gabadhii ciriiri aad u fara badan ayay ku jirtaa guriga imaanshihiisa iyo dharkii dabadda inay ku qaadatana ay rabtay saaxiibada in raalli geliso gurigiina raalli geliso dhowr bilood bay ku jiraysaa marka dambe waxaa leeyahay sigaarkay dhuuqaydo guriga kuma dhuuqi karto wixii ay cabbayso guriga kuma cabbi karto kama helayso brivatekii ay rabtay inay hesho private life gabadhi markay teenager noqoto waxay leedahay guriga aabbahay hooyaday way cadaadiyeen ma raba anugu maxaa rabtaa private life baan rabaa anugu qol kaleeto inaan degaan doonaya qolka kaleeto qaar fara badan boyfriend ay leedahay mesela gabadhihii qaarkood kuwa wadaadada ka hadli maayo runtii boyfriend ay leedahay MSN-kay ku baratay ma rabta inay ciddan soo tusto ilaa waa wiil qalaad weeyaane ma rabta inay ka harto inta la isla maqan yahay guriga loo soo kala hoyaadaya okay laakiin imisee la sii wadi karaa way arrintaas ma badna maalinka dambaad maqlaysa gabadhii see u joogta iskoolka saakisay u aadday lama arag iskoolka saakisay u aadday xaggee aaday gaaladii la wacday oo guri gaarha la dejiyey okay
guri gaar ah la dejiyay laakiin mudday soo socotay intay guriga joogtay mudday soo socotay kayskan wiilka xagoo waaday wiilkiya wiilku waa xiran yahay maxaa lagu xiray dhalinyaro iyo balaayo israaceen oo dagaal buu galay bal dagaal kale ma gelin khamrigii bahashi baa lagu helay dhab waa la xiray soo saas ma badna waa xiran yahay wiilkii goorta la xiray waxaan lagu xiray hadda ma aanu bilaabinin iskuulkii uu ku bilaabay baagyardigu ku bilaabay moolku ku bilaabay waa gadan yahay waa wuxuu ku jiraa hostage buu ku jiraa waa la haystaa adigana kama warqabtid marka caalamkaas communicationkaas xagee ka dhacay inta badan MSN-ka lagu wada hadlayaa dhag 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 conversation socda weey hooyadii waa hurdaa abihi waa hurdaa laakiin computerku ma hurdo waa lagu wada hadlayaa maantaas oo idin waa chat baa ka socdo luqadinka la isku hadlayaaho waa la isku sawiraa hadii la doono computerka naftiisa mobaardiska in la isku soo sawiro qof soo gali kara dhinaca soo sawir la isku soo diri kara miyay aaminsan ma aaminsana okay arrimahaas markii sidaas looga soo hadlo calaamaadka marka gabadhii iyo maanta markaysa ay boyfriend ku qabto intaasoo sano laga yaabo inay boyfriend ku haysato dabadda adiguna aadan ogeyn intaasoo sano oo wiilkii dhuuqayo ama gabadhii dhuuqayso maanta markaysa bahashi isku darsanayd oodan adigu ogeyn oodan la soconin maalinka dambeeto sidii ruwa waa ku beriyey oo kale amag cidlaahi waxba ma tarayso maxaa laga baahan yahay markaasi gabadha markaad ka dareento inay make up samaynayso jinsi samaynayso يعني waxaan inay raadiyaan waxa ugu sababa dariiqay ku arkaysaa wiil nin iyo naag isku haysta gabar la faca oo wiil haysta uga sheekaynaysa arrintan inay fan tahay arrintan perfect ina tahay waa fan bay leedahay perfect waaye sidaan oo kaleeto oo yaa u haysaa lagu leeyahay yaa u haysaa adigu inta waadadan boyfriend yaa u haysaa adiga marka waxa leeyahay yani logic matid adiga yaa u haysaa waaye hadaa celis yaa u celinaysa adiga yaa celinaysa adiga bad su'aal leeyahay business kaaga waaye hooyada business keeda haysata adiga dabaal yahay adigana business kaaga qabso saasa leeyahay mid kale MSN ka u soo diraydo ama Soomaaliyeed kale taa ama jinni kale taa ama saaxiibteeda ama wadanka marka joogto dadkeeda u soo diraysa hooyada yaaba business keeda haysta aniga boyfriendiga business kanaga maxaa ka galay hadayna guriga iyagu iyo goleyn way raadsanayna gurigan raadsanayna annagana waa farabadanta Soomaaliinta ilmaha laga soo ridaya dabada la tagaya waa laga soo ridaya dabada la tagaya waa laga soo rigaya dhin maxaa la sameeyay marka dambeeto who cares way aanu soo ridaya hada jeeraale oo ma lacag ku qaata anuguba maxaa soo ridaya dhag hortaaday taala qaar badan oo baartiska kamida intay ula timaaday leedahay war ma maqlaysan wax alla wax idin ka khusay ma jiro gaalka aad sheegaysan idinku gaal idinka waa raacaya ee hadda waxaan idin iraahdo aan dharka idin celiye hadda waa muslimaan leeyahay asagana dheh muslimaan ahaan leeyahay haddeertan ugu dara haddeertan biiqbiiqdaas kale looma baahne waalidkii waxa ku imaanaya dacay ku jira oo marka aanan khilaafi karin si ay ceebtooda oo saran waxay ku leeyihiin wiilkan cadaanka haddeer soo islaama gabadhii wada raba wiil cadaan haddeer soo islaama ma jiro saaxiibkeedii hore waaye sankay ka soo geliday maanta marka soo durtay marka saasay ku samaynayaan right hadda weydiisa dhalinyarada halkan fadhida wiilash imise iskuulka kuula yimid oo arrimahaas kaala sheekaystay jinsiga iyo wixii lamida kaaga sheekaystay 90% waxay ku leeyihiin waa nalkaas hadaysan qarinin waa nalkaaga sheekaystay ku qoranaya 90% iyaga ku sheegay hadda tiraado imise computerka kala hadashaana oo sagasad kala hadashaana you can't hatta imagine imise tivira pornographic hadda tiraado way ku sheegayaan waxa soo idil marka kulligood iyo maanta markaysa qaarkood khamriga ay dibadda ku cabayaan isgaarka ay dibadda ku dhuuqayaan iyo xashiishka isticmaalayaan iyo daroogada isticmaalayaan iyo lacagta lagu hoosteejka ay ku jiraan wax la qiyaasi karo maanta ma aha yaani run ahaanta markii loo hadlo wax la qiyaasi karo waa ka baxsan taarinta ayada waxa markaas loo baahan yahay calaamaadka lagu fahmayo inuu qofkaani oo cabbo bahashan haddaad baaranti tahay marka waa inaad fahamto weey xashiishka مثلا cabitaanka dadka ilmaha caba calaamaadka lagu yaqaan waxa kamida ilmaha hadaad aragtid waa daalan yahay yani waa qalbiga aad u garaacay markay dhuuqaanba qalbiga aad u garaacay waxaad kale ku garanaysaa dhuunta qalalan iyo afka labaduba waa qalalan yihiin oo dehydrated buu noqonaya markay xashiishka dhuuqaan dehydrated buu noqonayaan biyo la'aan buu soo baxaya marka canugu waxaad arkaysaa qalalan oo cuntada doonayn inuu cuno oo kula waa daalanahay
oo dhambacaad isu tuuraya ayaad arkaysaa number 1 dhambacaad buu isu tuuraya waayo qalbiga garaacaya man rabo inuu arko in qalbigiisu garaacayo shaqo ma qaba karo waa fatigue way waa daalan yahay totally waxa weeyaan waa tires way waa daalan yahay dhunti way qalashay afkiina waa qalalay waxa kale lagu yaqaanaa inuu qofka jismigiisu oo daciifo oo taag daraado oo xataa uu gaarsiyo heer aanu hergab yar iska ciri karin ilmaha dhuuqan xashiishka bal qaarkood waxay khatar u yihiin inuu waram ku dhaco ama sarataan ku dhaco ama uu ku dhaco kansarkii wixii la mid ah khatarkaas waxay ilmaha aad arkaysaa maanta oo dhan ilmaha dhuuqaya waa mahsan yihiin haddaad la hadlayso 5 goor 6 goor markaad u dhawaaqdo ayaa laga yaabaa inuu ku soo eego waxa la wixii feeling ka dhan iyo dareenkii oo dhan baa ka tagay canug awood ma laha inuu waqtigiisa inuu qadariyo xataa war iskuul soo malihid iskuulkii ma tagayo war shaqo ma taqaan karayo يعني waxa weeyaan wax walba oo dhan waa iska soo taagay tacbaan weey waxaad arkaysaa canugiyo daakradiisa xuntoo iskuulkii aanan performance samay karinin waayo haddii maskaxdu aad u shaqayso wadnahuna aad u shaqeeyo qofka waxba ma baran karayo hooyada iyo abuhu inay ilmahan dareemaan oo enerjigoodii maqan yahay taagtoodii iyo tamartoodii maqan tahay oo daalan oo afgambiga u yaala oo dhuntu qallalan tahay oo afku qallalan yahay oo dehydrateska noqday waalidku inay la socdaan waa laga maarmaan markay calaamaadka noocaas ay arkaanna waa inay markiiba ay maanta baaraan oo ay dhakhtar ula tagaan iyagoon u sheegin oo dhakhtar baa laga soo baaray ama kaadi ama maanta dhiig baa laga qaadaya waa inay dhakhtarka hoos ula hadlaan bal ka baar arrimahaas aanu ka shakisanahay canug tiin ee jar ah oo xoog iyo quwad laga sugaayay oo daa'iman inuu hurdo doonayo iska yaala oo moodo inuu banooni soo ciyaar banooni aan soo ciyaarinin yani mushkiladda ay leedahay taas ka mid ah oo daa'iman inuu yaalo ayuu doonay marka xashiishka dhuuqan waxa ku dhacay runtii yani tawaazinkiisa oo dhan ayaa lumaya waxa laga yaabaa inuu mawd u keen runtii oo dhinto baaya xashiishku waa ka tan weyn yahay ilmahan inuu dhinto ayaa dhici karto qofkiiba afgambi u dhaco dhinto ka yiraahdo markiiba waxa ku dhici karaya fikirkiisa ilmaha kulama socdo wuxuu kale gaarsiin karaa oo ilmaha markay soo daaweynaadaan gaarsiin karaya inayba marka dambe taninimadu ka tagto oo baabiido ayuu keeni karaya oo ay ku dhacdo xataa cunna iyo tacbaan noocaas inay ku dhacdo waayo wuxuu qallajinayaa manbicii shahwado dhan buu qallajinayaa marka xashiishkan ay cunaan waqtigan marka wuxuu gooynayaa nasligii dhan buu ka gooynayaa shahwadii oo dhan buu ka qallajinayaa marka dambana wuxuu dhaxal siinayaa yani tabardaro iyo maanta markaas inaanu waxba tabar lahayn afyoonka dhibaatada lagu yaqaan ama waxyaalaha la doonay inay ku yaqaaniin oo aan afyoonkii saldhigiisii macallinka laga yaaba macallimada laga yaaba iskuulka laga yaaba suuqa ayuu ku barayaa booliska ku lug leh waatan idin soo sheego wuxuu leeyahay iska meelahaas oo dhan oo manaabicdiisii asaga aflaamta ka sokow manaabicdaas uu leeyahay afyoonkii marka waxa lagu yaqaanaa runtii ilmihii inuu daa'iman kugu noqdo inuu caraysan oo qallafsan oo tambar ah oo marka la hadasho isku soo kogayo ku cunaya oo aan waxba ka dhageysanaynin oo mararka qaarkood lugaha dhulka ay la dhacaan oo kaleeto ama timaha uu isku dhago ama gabadha timaha isku dhagto oo kaleeto ayuu keenaya hada jeer markay cabaan dadku ay mar dhuuqaan ama wixii la mid ah waxa laga yaabaa dhuuqid marhu inay sii wado usbuuc dhan inay wado ayaa dhici karta arinta iyada gabdhihii wuxuu ku ridayaa wax la yiraahdo periodkoodii inuu khaldamo ayuu ku keenayaa markay dhuuqaan baalka afyoonka naftigooda oo disturbance manifestiga yani maanta markaysa prolactinkeedii oo dhan buu ku ciyaaraya wuxuu u keenayaa suul khuluq fara badan akhlaaqda inay ka xumaato inantii ama wiilkii inuu akhlaaqda ka xumaato wax walba inay careless soo baxaan oo dan aanan ka lahayn waxbaba ay soo baxdaan oo inay hooyadeed u kaalmeeynin aabaheed u kaalmeeynin oo waxba dan aanu ka lahayn in la hadlay in kale aanu ogeyn ayuu ku keenaysaa markaasi wax allaala wax progressive ay samayn karaan oo xagga daraasadii iyo shaqadoodii wax intaaj ay samayn karaan ma jiraan ilmahaas in la ogaado oo lala socdo hadii jeeraale weey waxa dhibi doona marka dambeeto inuu doonayo canugan inuu waxyaalahan shaadka ah inuu ku noolaado waxyaalahan qalloocan oo inxiraafka inuu ku noolaado marka ma doonayo cidda inuu la joogo ama inay cidda la joogto ma rabto yani noloshii family oo dhan ayaa dhibaysa markaas dambe maxaa yeelay waa ku adkaanaysaa maadaama waxyaalahaas oo barta canugii waa ku adkaanaysaa waxyaalahaas ay doonaysa inay xaqiijido jinsigu uu ka mid yahay
yaana u keenaya inay marka dambeeto isolated nafteeda ku noqotay gaar uga goodo cidii inteedii kalayto waxaa imaanaya runtii inay ku dhacaan ilmihii marka dambeeto jariimadaas aan sheegaya iminka inay ku dhacaan oo qofka markii la siiyo hal dhuuqid markii la siiyo ama waxaa karaakisku ay ku jiraan la siiyo ama xashiishka ama afyoonka ama herowiinka ama margwaanada ama gaanjada wax allaale wixii markii la siiyo wuxuu noqonayaa ilmihii inay ka daba ordaan qofkii markii hore u keenay ka daba ordaan qofkii marka muraad buu lahaa dan buu lahaa marka dantii uu ku gaaraya marka dantiisi iyadana ay u gaarto dantii aan wiilka u gaaro dantiisi wiilka gabar ma kala lahaa si dantiisii uu gaaro wax kasta oo la weydiisto diyaar buu leeyahay qofkaas wax kasta oo la weydiisto diyaar buu waa umul khabaa'ith weey yani daraagiskaas ilmahaas si ay u helaan yani ninka qaadcunaha waxa la yiraahdaa waa joogan dad badan oo cuneen wuxuu doonayaa xataa qof aan weliga arkin oo maqlin cagalatu sheegay qof aan weliga arkin oo maqlinin yuu doonaya inuu gacanta u horsado xataa waa dulli weey sooma sharaftiis waa baabada qofka daraagiska cuna oo xashiishka iyo maaragwaanada iyo herowiinka iyo ku dhaqmana yani qof oo ka xishoonayo ardada korkeeda taagan ma jiro hadduu yiraahdo marka waxay ku xiran tahay waxaas inaan kugu sameeyo inaad arintaa heshahay waa samaynaya gabdhihii marka waxay noqonayaan inay jirkoodii iibiyaan si ay lacagta u helaan wiilashii naftooda laga yaabo jirkoodii in laga iibiyo qasban canhum ayagoon jeclayn laga iibiyo si lacagta ay u helaan waayo bahalkaana ka horeeya wax walbo dhan asaga uga horeeya hay baan noqonaya habi baan noqonaya noloshaydii baa matqan meel sare tagaysa mashaakilkii baan is lowsiinaya si ay u gaaraan marka waa inay arinta ayada sameeyaan marka wuxuu ku ridayaa runtii tuuganimada shoplifting asaga u keenaya inuu marka xado dukaamada xado baabuurta inuu jabsado maanta markaysaa wax kasta waa ku dhacaya canugaana si uu u helo lacag oo ku gato mashaakilkan yani qaar badan oo ilmaha kamid ah hadaad weydiido tirado shoplifter ma isku dayda haabu kule isku dayo kulay intaas dad maanta weydiido mid gaar ugu waraysato aadan rabin inaad dadka hor fashisho mid walba ku sheego kulay inta qoslo waa isku dayay inaan xado alaab dukaan inaan ka xado dukaamada waa weyn la tagaan dadka ku jeedinin waa tagayaan waa ku sheegayaan sidii baleerkan rabaa inaan xado waxaan rabaa sarwaalka oo noocaas weynka inaan xado waxaan rabaa inaan sii iibiyo lacag inaan ka bixiyo lacagtaas wuxuu ku sameeyay kuma sheegayo lacagtaas wuxuu ku sameeyay kuma sheegayo gabdhaha sidoo kale yani gabar baa jirta Soomaaliyeed oo ii timid maalin saadka igu timid waxay tiri waxaan doonayaa dhibaata ay haysata bay tiri saddex nin yani mid walba waxaan waa ku guursanayaa aan guursaday guur baan si aan lacag uga helo aan ku gato baasha midkaas yiraahdo lacag baan ku siinayaa hayaan yiraahdaa bay tiri mid baa afaraad bay ka hayso Mareykanka uu ila tagay bay tiri waa gabar Soomaaliyeed weey sida uu dilaayay oo ii garaacay markuu wax walba xun ugu sameeyay tir wax walba meesho doonana oo iga isticmaalay meesho doono yani riitir markii damad inaan dhintay inaan islaamka u noqday inaan islaamka u noqdaa ii fiican marka waxay tiri ilaahay toobada ma iga aqbalayaa kow intaan niman guurka igu samaydayna keeba guurkiisu sax yahay haday sax ahayn saan uga baxaabay tiri marka waa fursad dahabiya runtii waxyaalahan idin kaga sheekeynay dadiyowgan ka helay kamid yihiin marka aan la sheekeysanayo yani sida xariga ugu dhacday waxaan idin sheegayo dhan dadka ii sheegay kamid tahay at least 15 qof oo saasaan arkay dabinkaas inay ku dhaceen oo iskuulkii lagu baray oo ay hoday gabadhaasi naag macallimad ahayd markii horeyto oo markay arrin sheegtaba ay lintu ka daadanaysa canugtaas ayna markii arrinta lagu riday aanay gaarin 15 sano aanay wali gaarinin oo ciidoodii ayadu ay dacwayso khaatir ka istaagtay yani dhibaatooyinka noocaas oo idil waxa kulli wada keenaya bay tiri macallimada igu samaysay bay tiri maalintii ugu horeysay dhuqsida bahal waxaan kadibna wixii baa ii macaanaaday ayadii baa i waday ilaa aan badda ku dhacay bay tiri marka macallinku waa abeesa kula yaale ogow islaamiga iskuulka faa'iidadiisa waan soo noqon doonaa insha Allah taala waxa ka soo muuqanaya markii qofka uu isticmaalay in badan afyoonkaasi amraad fara badan oo jildiga xaqiisa ama haragga inay ka muuqdaan oo iltihaabaad fara badan
oo maanta ma arkaysaa ay ka yimaadaan oo jirkiisii ku saabsan in khaarijiya inay soo baxaan oo bruises iyo waxyaalo fara badan ka soo baxaan jirkiisii heroinka wuxuu asaguna maanta ma arkaysaa aad u baabi'inaya qofka shucuurkiisii iyo dareenkiisii oo dhan buu baabi'inaya oo jirinaya runtii dareen la'aan waa ku tuuraya wuxuu keenayaa jirku inuu daciif noqdo taag daraado aad u taag daraado oo aan waxba iska celi karin waxaa ku dhacaya markaasi inuuna cuntada cuninin oo cuntadoo dhan ka tago maantoo dhan inuu soo jeedo oonu seexo karinin ilmaha waa soo jeedaa hurda la'aana ku dhacaysa waxa uu isu beddelaa waxa la yidhaha confusionka oo ilmuhu ay ku leeyihiin inaan waalan yahin in fuyow lama kala yaqaano in badan oo dadkan ka mid waxa laga inuu yidhaahdo waxaan arkay ilmihiiyo waashayo wax ku dhacan aan aqoon weynay soo u jooga ilmihii yaa sidaan ku aragnay buu ku leeyahy iskuulki waa iska daayey shaqadii waa iska daayey dadkii lama hadlaayo saanoo kale meel fadhiya dad la hadal la'aanta iyo isolationka iyo ka go'itaanka iskuulka iyo ka go'itaanka socialka iyo ka go'itaanka shaqada kulligoodoo dhan waxaa iska leh heroinka iska leh waxaa dhici karta inaan u sheeginin oo aanu dhihinin heroinka saatan ii keenay mushkiladdan cudurkan igu dhacday ciddoy heroin baa ii keenay inaanu dhihinaa dhici karta canugan laakiin waxyaalaha sayniska lagu yaqaano waxaa ka mid ah inuu ku dhacayo oo isolationkaasi uu ku dhacayo tabardarradaasi ku dhacayso cunto la'aantu ay ku dhacayso usan appetite cuntada u haynin oo iska oolaya marka dambeeto qaarkood ay matagayaan qandhana ay hayso had iyo jeer ale qaarkoodna ay matagayaan qandhana hayso had iyo jeer ale xanuun ou hayo had iyo jeer ale bal waxaa ku dhacaya mararka qaarkood calool xanuun aad u adag baa ku dhacaya had iyo jeer ale markay heroinka isticmaalaan qaarkood shuban buu u keenaya dhowr maalmood aad leedahay war maxaa ku dhacay ilmahan daayiraya haya muxuu ahaa qaarkood waxaa ku dhacaya dhabar xanuun aad u badan ayaa ku dhacaya oo kuleey dhabarkaa laga haya canuga leeyahay dhabarku ka jiran yahay ay ku leeyihiin waxaa ku dhacaya inay murqihiisu inay taagmaan oo canugii dabci waayo yaa ku dhacaya waxau keenaya dhidid fara badan inaad canuga ku aragto hadi jeeraale iyo madax wareer aad u fara badan oo dheeraada inaad ku aragto hadi jeeraale waxaan sidaa idinkugu sheegayaa inaad la socotaan ilmaha adigu aad dhashay wiil iyo gabar midkuu yahaba inaad la socotid hadi jeeraale cocaine wuxuu asaguna baabi'inaya qofka shucuurkiisa iyo dareenkiisa oo dhan buu baabi'inaya maskaxdiisa iyo qaadkii uu qaadayo la attention oo dhan ma laha iskuulkana uma lahan intention oo macnaha attention waxa weeye soo jeed oo macallinkii u soo jeedo wax ka dhageysanaya ma laha parentskii ayaa waalidkii wuxuu ka dhageysanaya ma laha qofna ma rabo inuu dhageysto hada jeer waa maahsan yahay maahsanaan bay Soomaalidu tiraahdaa ilmihii waa maahsan yahay buu ku oranaya waxa ahaayay tacab shadiid ayaan daal fara badan ma canugan haysta I'm tired canugu waa iska jiifa war iskuulkii ma aadin shalay ma aadin maanta ma aadin daraad maxaa ku dhacay daalka faraha badan leh waxa keenaya cocaine-ka keenaya ama crackis midkaas bas u taqaanid gaanjada nafteeda ayaa keenaysa maragwaanada keenaysa run ahaantii qaadka dad badan baa rabeen in lagu daro laakiin qaadkuna waa qayb kamida weeye daraagiska kamida weeye qaadku waxyaalaha uu leeyahay daa'iman qofkii cuna dadka cuna ay joogo maanta dad badan oo iiga khibrad badan baa joogo indhuhu inay soo baxayaan shaki kuma jiro indhuhu burburanayaan qaad iyo indhabuur waa la isku yaqaanaa iltihaab baa ku dhici doona runtii xagga afka iyo caloosha ayaa ku dhacaya waxaa ku dhici doona marka dambeeto dacfi fara badan calool xanuun fara badan oo marka dambe mususha geli kari waayo marka qaarkood uu dhinac iskaga dhajiyo ayaa ku imaanaya waxa uu qaadku maadaama nicotine amaydkiisu uu aad u sareeyo wuxuu weerarayaa beerku weeraraya inta badan dadka cagaarshowga waxyaalaha ku dhaliya qaadka kamid ah laakiin Soomaalidu uma taqaan sida cagaarshowga cudurrada dhaliya qaadku wuxuu kamid yahay cudurrada bahalaha waxa dhaliya cagaarshowga dhaliya uu kamid yahay wuxuu kaloo keenayaa waxa la yiraahdo kidney failure inay keliyuhu istaagaan buu keenayaa qaadka naftiisu asagoo oo ku dhacayo qofkaasi markuu cuno caawa iyo bari markuu cuno kadib oo ku dhacayo 2 maalmood oo ku dhacayo khumul iyo kasal fara badan oo ku dhacayo waxa uu kale u keenayaa dacfi jinsiga ayuu u keenayaa marka dambe waa laga yaabaa markuu cunayo qaarkood inay qooqaan waa dhici kartaa laakiin asalka dambe wuxuu u keenayaa inuu ku dhaco jinsigiisana waxba kari waayo oo marka dambe to mala agjiifta gabadhiisii uu noqdo xaaskiisa agjiif uu noqdo haddaanu xataa daciifin naftoodana
marka saba qoyska isqaba ninka qaadka cunaahay waxa ka dhaxeeya dagaal fara badan baa ka dhaxeeya uma gelayo adinka iyaga khibrad badan baa laga yaaba yaani inaanu soo gaartii karin xaaskiisa inaanu soo gaari karin oo hortood ka baxayo inaanu maanta markaysa raali gelin karaynin oo tabar daran yahay waxyaalo fara badan oo maanta haysta ayaa jira markii ay arintaasi dhacdana inuu xanaaqo xaaska uu ku xanaaqo feer ku bilaabay keenaysa markaa oo u maleeyo inay xaaskuba u keentay inuu talfay asagu inay xaasku u keento ciilkiisas meel uu kula dhac markaan garan maayo way ciil fara badan baa qabanay ciilkaas marka wuxuu kula dhacay inuu la dagaalamo oo feero oo saas oo kale taa keenaysa waqtigu uu dhamaado Soomaa waxaan u baahanahay khamriga aan iska daayo khamriga waan wada ogsoonnahay ilaahay baa quraankiisa ku yiri yaa ayyuhalladheena aamanu innamal khamru wal maysiru wal ansaabu wal azlamu rijsun min amali ash-shaytaani fajtanibuuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قادك وحويقة بهاية محاضرة قارة إنان كهد لرنتي ما دام أو يهي مشكلة ضدك الصوماليات أو كمدي هاي إن لقى هذا إنه أباهنتي ما هم لقى روماني لكن تايم كي وعد ماضي سيد الشيخ أو يشيغيو وحويان مركا قاد كان بهالك اللي يراهدو إلهي قرآن كسوحو كله يهي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ما دام خمركو أو كانوا ميسركو أو كانوا بينجوغا إيو ما أنت ماركيسا قماركو أو كانوا أو من عمل الشيطان يهي فاجتنبوه لعلكم تفلحون بور الله سبحانه وتعالى اسكد هاي أدلي بانتين إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة وإذا انتو شاع اسماعيل بارود ذي جيران بري ويديي انغو ardaaho joogna masaajid Shacri Suufi Allah yarxamo oo joog jirin dadka wada yaqaan dadkii soo maray iyaga waran baan iri qaadku wuxuu yiri qaad nin u fadhiyaahay aadaan u kicimaaya buu yiri baan weeye buu yiri ilaahayna xusimaaya buu yiri waayo jirkiisa maskaxdiisa ma joogta buu yiri dadkana markay wada sheekaystaan oo sheekadu ka xumaato qabiil bay la gashaa buu yiri markaana waa iscaayaan buu yiri markaana waa dagaalamaan buu yiri وعن الرواح عليه شيخ إسماعيل وقود أولياء كورن قود أولياء ما هنا وقود شيطان بوير شيخ إسماعيل بارود اللي كده وقود شيطان بوير أولياء ما أنت أولياء وعلنا ولقد لما أرق بوير وارمتيس أولياء وعلنا ولقد لما أرق ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صلاتنا وإذن كجيدين ذكرك إلهنا وإذن كجيدين مركا قاد كأسقى وكوينها قراديسو إن أنت سوى قد بواكوينها مركا الله سكان نسوع عليه وما المخرج marka wixii aan sheegnay makhrajka looga baxayo khamrada iyo balaayada ay ku haydo ummadda Soomaaliyeed meeqa daqiiqo haysaa habana toban daqiiqo su'aalahaas iska daay khamrada nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiix ah kullu muskirin khamrun wax alliya waxa wax saqraamiyo dhan oo heroinka iyo margwaanada iyo xashiishka iyo afyoonka iyo kookaynka iyo gaanjada kulligood waa khamri buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wa kullu muskirin xaraam buu nabiga wax kasta oo aqliga bedelana waa muharram buu shariicada diinteeda waa ku xaraam buu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka khamrigu waa xaraan waayo aqliga bani aadamka ee ay ka mid tahay maqaasidu shariica al-islaamiyya bandigeeda saddexaad ayuu baabiinay duku daanku ka dhigaya iyo bandigeeda afraad labadaba marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri man shariba al-khamra fi ad-dunya famata wa mudminuha qofkii dhinta khamrada adduunyada ku caba oo ku dhinta asoo wali cabaya buu yiri lam yashrabha fi al-aakhirah buu nabiga calayhi salaatu wasalaam aakhira kuma cabo ahlu jannah hadii xataa jannada oo galo inta la soo cadaabo ka soo foqo jannada la keeno kuma cabaya buu yiri waa laga qadiyaa buu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka muslim iyo bukhaari ayaa isla wariyeen waxyaalaha uu leeyahay iyo dhibaatooyinkiisa runtii waqtigii ma harinin laakiin khamrigu intaa waa ka garaado weyn yahay maxay tahay marka makhrajka looga bixi kara arrinta ayada ah makhrajkaas waxaa looga bixi karaa almadrasa alislaamiya al-uswatu alxasana uswatu alxasana waxaan soo sheegnay ku dayashadii qaribneed baan ka soo hadalna soo ma soo sidaa ma dadkii lagu dayanayo qaribnaa yaan ka soo hadalna soo ma dadkii lagu dayan lahay fiicnaa iyo sidii looga bixi lahaa mashaakilkaas inaan ka hadalna weey marka insha Allah al-uswatu al-hasana
ayaan berrito ugu hormarin doonaa intaanan gelinin qurbada iyo mashaakilkeeda marka uswatul xasana berrito 10 subaxnimo haddii alla yidhaahdo miyaan niri ma bedeshan time kimis sheekh Yusuf Shaali waxa ka qabay berrito insha Allah taala marka muxaadaraan leeyahay muxaadaradaas aan leeyahay waxaan uga hadli doonaa laba bandi waxa weeyaan mashaakilka galabta aan ka hadlay sidii looga bixi lahaa mashaakilka iminka aan galabta ka hadlaynay diiniyan sidii looga bixi lahaa iyo makhrajkeedu waxa uu yahay waayo likulli mushkila lahaa makhraj yani every problem has exit marka exitkeedii inaan ka hadlo berrito waxaan ka hadli doonaa kaleeto mashaakilkan iminka aan ku dhex dhacnay oon ku jirno haddii aynu nahay dadka qurbaha ku nool mashaakilkaas iyo qurbaha waxa aan ka dhaxalnay inaan berrito ka hadlana waan doonayaa haddii alla yidhaahdo maalin dheer ha igu noqoto maadaama berri maasaadama aan baxayo waxaan ka hadli doonaa arrintaa iyada dhallinyaradii aan ka hadalnay marka oo galabta aan sheegay arrimahoodii tawbaa idiin furan oo dhammaantiin soo noqdaan leeyahay rag iyo dumarba baabu tawba maftuux ilmihii la soo riday iyo daraagiskii aad dhuuqday iyo sigaarkii aad cabtay iyo maanta saaxiibkii xumaa iyo kulligood waxay leeyihiin makhraj bay leeyihiin waa at-tawba ila allahi caza wajalla wey ilaahay wuu aqbalayaa dadka ilaahayna waa soo dhowaynaya subxaanahu wa tacaala qofkii ilaahay u soo dhowaada taako ilaahay diraac buu u soo dhowaanaya qofkii ilaahay diraac u soo dhowaadana ilaahay baac buu u soo dhowaanaya qofkii ilaahay xaggiisa u soo dhaqaaqana ilaahay asaga uga soo dheeraynaya inuu asaga aqbalo asaga uga dheeraynaya subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan daa'iman yaanan yasin yaanan dhayalsanin in la tawbad keeno baabu tawba inuu maftuux yahay yaan la dhayalsanin ilaahay baanan amro yidhi watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun marka dersigaygii maanta gaclaa waa caawayto halkaasaan ku soo gebagabaynaya ayaday noo dhiman tahay haddii ilaahay nafta baaqi nooga yeelo dhibaatooyinka aan sheegay makhrajkoodii inaan sheegno aabbuhu inuu la saaxiibo wiilasha iyo gabdhaha hooyadu inay la saaxiibtay wiilasha iyo gabdhaha madrasada maanta islaam schoolan waxaan samaynaa elementaryga markay high schoolka ilmuhu soo galayeen intermediate-kana gaaladan u dirnaa marxaladda ugu xun oo ugu qallafsanna waa marxaladda muraahiqnimada ama teenager-nimada ama soo kobcidda iyo iskuullada gaalada ilmaha elementaryga iskuulka islaamiga ku geeyay haddaadan high school ku sii wadaynin high schoolka iyo elementaryga awoodda saara ilmuhu intay yaryar yihiin daraagisna loogama sheekayn ilmaha la jooga ogama sheekay karaan jinsina ogama sheekay karaan intay yaryar yihiin oo 4 sano 5 sano 6 sano ay ku jiraan mushkiladdu waxay ka bilaabataa waa 10 sano wixii ka sarreeyay ilmahaaga 10 sano wixii meesha ka sarreeyay geeliheed waa inaad ka fakartid wey islaamiga iskuulka iyo madrasada makhrajkii waan ka hadli doonaa iyo dowrka masaajidka waan ka hadli doonaa haddii la yidhaahdo marka intaasan galabta ku soo gebagabeeyey wabillaahi tawfiiq wixii aan iriyo khayrina ilaahay iyo xaggiisay ka ahaadeen wixii qalloocohon irina aan naftayda iyo shaydaan baa isu qurxiyey marka ilaahay baan uga tabarru'aya subxaanahu wa tacaala intaas ayaan galabta ku soo joojinayaa khamrada waan ugu dabamariyey waayo anagu khamrada dadka soomaaliyeed dhibkeeda aad bay u yaqaanin iyo meelaha laga barto hadi jaraale haddii time aan u helnana insha allah waan ku dari wabillaahi tawfiiq wasala allahu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaa kaleetoo jirto mas'ale laygu wareersho ay ka mid tahay cuntada teeda xalaasha iyo teeda xaaraamtaa ka hadal oo baha la yidhaahdo number fara badan oo ah ku yaalla number fara badan oo ah yaa ku yaalla marka insha allahu tacaala muxaadarada hadda ka hor baan uga hadlay magaalada Stockholm Ringaby masaajidkeeda waxa ay soo gaartay inaan cajaladii bixin somehow haddii loo baahdo insha allah berri baan ka hadli doonaa iyadana yani berri ma dhihi karo dadku waa baxayaan berrito soo maaha haddaan Soomaali media ku reebi karana Soomaali median u duubiyan uga tegi insha allahu tacaala way koytoon ka baxaya anugu marka haddii alla yidhaahdo ama Soomaali median hamiin dambe u reebi daal kastaba aan ku qabee haddii kartana waqti kale isugu niman waayo waa la soo wacay waxa la yiraahdaa cajalad muxaadaradaas meel kasta Yurub joogda loo baahan yahay time no maanan helin kaleeto marka insha Allah taala markii ay muxaadaraadka waqtiga ugu tala galeen ay dhamaadeen haddaad rabtaan inaad cajaladaas dhageysataan ugu dameysta markii barnaamijka la gabagabay ahlan wa sahlan cuntooyinku dhanan kaga hadlaya iidaan iyo waxay ku saabsan tahay waxeeda permissible-ka iyo waxeeda lawful iyo unlawful-keeda labadaba waan ka hadli doonaa insha Allah taala wabillahi tawfiiq ساسا كوجب جبينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته